Assalaamu calaykum. Maanta waxaan dhigan doonaa casharkii toddobaad ee isu qaybinta tirooyinka inagoo casharkan ku dhigan doona oo ku eegi doona marka laba tiro la isu qaybiyo xisaabta hadhaaga yeelan doonta. Laba tiro isu qaybinayna labada tiro hadhaaba yeelanayaan markay hadhaaga yeeshaan qaabka jawaabta loo qorayo eegi doonaa. Marka dhowrkan tusaale ayaynu qaadan doonaa. Tusaalaha koobaad haddaynu eegno 63272 loo qaybiyay 3. marka hore radicalkeenu soo warnaynaa tirada la qaybinayo ee 63272 gudahaynu gashanaynaa tirada loo qaybinayo ee 3daana dibadaynu dhiganaynaa. Marka tirada ugu horeeya tirada la qaybinayo ee 3da way la egtahay tirada loo qaybinayo marka way soo qaybsamayaan. Tirada marka 3 lagu dhufto 3 sida raadinaysa waa hal halkii waxaad dhiganaysaa ee boos koobada 3 ku beegan marka waa isku soo dhufanaysaa hal ku soo dhufo 3 waa 3 kala jar waa eber 6 ila soo daadeg marka tirada marka 3 lagu dhufto 6 sida raadinaysa waa 2 labada waxaad dhiganaysaa booska labaad ee 6 ku dusheeda 3 igu soo dhufo waa 6 ka soo jar waa eber tirada kale ayaa la soo degaysaa ku xigta tuuga way ka yartahay tirada loo qaybinayo marka tirada ku xigta la soo degaysaa 7 markaas tirada 3 marka lagu dhufto 7 ayaad raadinaysaa waa 9 ka tuuga dushiisa saaraysaa 3 igu soo dhufo 7 ayay soo kala jar waa eber tuuga kale la soo daadeg tuugu waa uu ka yar yahay tirada loo qaybinayo 3 tiro kale loo soo daadegana ma jirto marka halkaas kaga tagaysaa hadhaabay noqonaysaa. Jawaabta waxaad u qoranaysaa xagga sare tirada jawaabta ayaad u soo horeysanaysaa 129 hadhaa 2 hadhaaya markaas jawaabta u qoraysaa. Su'aasha labaad haddaynu eegno 1474 loo qaybiyo 7 marka hore waxaanu radicalkii baynu soo warinaynaa tiradii la qaybinayay gudahaynu gashanaynaa 1474 tan loo qaybinayo 7dana dibadaynu dhiganaynaa. marka tirada ugu horeeya tirada la qaybinayo hal way ka yartahay tirada loo qaybinayo labada dambe labadaas isku qaadaynaa tirada marka 7 lagu dhufto 14 sidaas tirada waa 2 waxaad dhiganaysaa godka labaad ee 4ka dushiisa marka 2 7 igu soo dhufo 14 isoo kala jar waa eber 14 7 ila soo daadeg 7 way qabsanaysaa tirada 7 marka 7 tirada marka lagu dhufto 7 waa halka booska ku xiga 7 dusheeda saaraysaa 7 igu soo dhufo 7 ka soo jar waa eber 4 hadhayna ila soo daadeg marka 4 ay ka yartahay 7 maadaama ay ka yartahay tiro kale loo soo daadegana jirin halkaas inuu kaga tagaynaa hadhaabay inoo noqonaysaa. Jawaabta waxaanu qoraynaa tirada jawaabta ee xagga sare 21 hadhaa hadhaaba loo soo gaabiyay hadhaa 4 marka halkaas inuu kaga tagaynaa saas jawaabta u qornaynaa. Su'aasha saddexaad haddaan eegno 25504 loo qaybiyay 5 marka hore waxaan soo warinaynaa radicalka tirada la qaybinayo 25504 gudahaynu gashanaynaa tirada loo qaybinayo 5 aana dibadaynu dhiganaynaa. marka tirada ugu horeeya tirada la qaybinayo maadaama ay ka yartahay tan loo qaybinayo labada dambe isku qaadaynaa markaas tirada 5 marka lagu dhufto 5 raadinaysaa waa 5 booska labaad ee 5 dusheeda ayaad dhiganaysaa marka 5 igu soo dhufo 25 soo kala jar waa eber tirada ku xigta 5 ka ila soo daadeg 5 way qaybsantaa 5 marka tirada marka 5 lagu dhufto 5 sidaad raadinaysaa waa hal boos ku xiga 5 dushiisa ba saaranaysaa 5 igu soo dhufo waa 5 ayay soo kala jar waa eber tirada ku xigta ila soo daadegaysaa eberta tirada marka 5 lagu dhufto eber sidaad raadinaysaa waa eber waa 0 dushiisa saaranaysaa booska saddexaad 5 igu soo dhufo waa eber 2 eber isoo kala jar waa eberun lambarka ugu dambeeya ee 4ka la soo daadeg 4 waa uu ka yar yahay tirada loo qaybinayo marka lambarka loo soo daadega ma jirto halkaas inuu kaga tagaynaa hadhaabay noqonaysaa. jawaabta waxaan u qoraynaa
jawaabta inoo soo baxaa ka sare ayaad horta qoranaysaa 510 xaraa 4 halkaasi maanta casharka inagu joogi doonaa insha allah waa inoo iyo casharka inagu xiga ee berri